iyadoo wax yar uu ka adsan yahay cuska qabanqaabada 18 isla markaana ah maalin guud ahaanba sharciga jamhuuriyadda Soomaaliland ee aad ugu farxaan maadaama ay tahay maalintii gobonimada ay qaateen. haddaba munaasabad arrinkaasi lagu gorfeynayay ayaa ka dhacday hoolka shirarka ee gobolka Sanaag. munaasabadii arrinkaasi ayaa waxa goobjoog ka ahaa barasaabka gobolka Sanaag mudane Cabdilaahi Faarax Meydhane iyo marti sharaf kale oo aad u tibra badan. ugu horeyn ayaa waxa ka hadlay taliyaha qaybta booliska Maxamed Faarax Cilmi waxauna ka sheekeeyay maalinta qaranimada Soomaaliland sidoo kale isagoo sheegay in maalintani ay tahay maalin ku gadaaman isla markaasina shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland uga rajeeyay maalintaasi in ay si weyn iskugu soo baxaan. sidoo kale munaasabadaasi waxa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag mudane Cabdilaahi Faarax Meydhane waxauna ka sheekeeyay ahmiyadda maalintani isagoo sheegay in ay tahay maalintani maalintii guud ahaanba jamhuuriyadda Soomaaliland 1991 laga dhawaaqay gool isku taagka magaalada Burco. وديار قروودي وحنا مارتي لحية طبر حمود بقول وصارني لحية طبر كحمود هوش وده كل ده رجلا وحنا كنت رجلنا إلى مارتي شدي هراء مارتي ده أقول عجزت ما نسكت ولا ما تقولي وما وقبلنا مارتها ومارتي عن مارتي ده كون مدن لصق والله وحنا مارتي شدة ضرك كلا انتي سكلا Somaliland loogu diyaar garoobay si leeg manidana anagu diyaar garoobeyna. si kastaba ha ahaatee xuska 18 May ayaa guud ahaanba dalka jamhuuriyadda Soomaaliland laga xusaa bisha May 18 iyadoo looga dabaaldego guud ahaanba jamhuuriyadda Soomaaliland gobolada iyo degmooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo magaalada Saylac marka aad eegto maalintani loogu diyaar garoobayo maalin xuska qaran. محمد عبد الله شبكة عالمية شمال نيوز وركة سيدة.